السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادة مركلية موقال عصب وانيقو عبد الرشيد بلابي muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa qiso yar oo cajiib ah oo qalbiga taabanayso qisada oo cibaankeedu yahay weligaa ha ugu tagin waalidkaa cidlo intaan u guda galin ka hor muuqaalka fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar mahadsanid kadib markii aabihii dhintay halkii wiil ay dhaleen wuxuu go'aansaday inuu hooyadii ugu tago guri kharaab ah oo gaboobay wuxuu soo booqan jiray hal mar bishii taasoo markii dambe isku bedeshay hal mar sanadkii wuxuu guri weyn ka dhistay magaalo kale uu ka shaqayn jiray wuxuuna yeeshay reer maalin baa la soo wacay oo loo sheegay in hooyadii ka codsatay inuu si degdega u yimaado oo ay rabto inay la dardaaranto markuu u yimi ayuu arkay in hooyadii aad u liidato dhimashana qarka u saaran tahay wuxuu weydiiyey hooyadii ma jiraan waxaan kuu qaban karo hooyadii ayaa ugu jawaabtay fadlan mar waxaad gurigan ku soo xir waxaadna keentaa talaajad wiilkii ayaa isagoo yaaban su'aalay hooyo in badan ayaad ku nooleed gurigan marnaba imaadan weydiin talaajad iyo filinjeer waa maxay sababta ka dambaysa inaad xilligan i weydiiso hooyadii ayaa ku tidhi taasi waa sax anigoo adkaysi baan u lahaa waana maareeyey inaan ku noolaado gurigan laakiin adigaan kaa walwalayaa haddii ay carruurtaada halkan kuu soo diraan waxaan ka baqayaa inaad xamili weydo aadna rafaado wiilkii ilin ayaa indhihiisa ka qubatay naxdin iyo ceeb ayuuna la hadli waayey waalidkaa kaama tegin kolkaa aadka ugu baahnayd oo aad yareyd cidlaha ugu tegin markay waayeel noqdaan jacaylka keliya aan shuruud ku xidhnayn aan xad lahayn oo aan laga weynaanin marnaba waa jacaylka hooyada hooyo kasta allaha siiyo owlaad baari ah oo aan marnaba cidlo ugu tegin intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa axbaabii inta aan ku kulmayna muuqaalka xiga waa anigoo cabdirashiid ablaabe oo idin leh sidaa iyo ammaano allah